كمبانيga Elgar maamulihiisa iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta halku dhigeen waa adna dhoobada anna dhagaxani ka dhunta dhaxalku mala dhulka inaga iska leh hadeynaan inagu dhisan cid inoo dhisay islaama hadeynaan inagu qurxin cid inoo qurxinay islaama arko hadeynaan inagu difaacin cid inoo difaacay islaama arko hadeynaan inagu amnigiisa ka shaqayn cid inoo ka shaqaynay islaama arko hadeynaan horumarkiisa ka shaqayn cid inoo ka shaqaynay islaama arko maanta wadadan la dhisayo sidii hore mas'uuliyiintii iyo mulkiilayaashii kambanigu uga soo sheekeeyeen intii la ku talagalay inay ka badato inta aynu inagu ku bixinayno ka geysanay qof walba waxa uu awooday inuu ka geysto magaaladeena bilixdeedii inaynu soo celino town balankeena inaynu sameeyno quruxdeedii inaynu sameeyno wadadan iyo wada laamiga maanta magaalada gaalkacyo qalbigeedii magaalada qadiimka ahayd xafadii Garsoor ayaa laga dhisayaa waxaan rajaynaynaa in magaaladeena dhan wada laami iyo wada laga dhiso taa waxaynu ku gaari karnaa markaynu dhammaan xooggeena iyo xoolaheena iyo tabarteena isu geyno aynu ka gudubna wixii meesha ina dhigay qabyaalad kala qaybsanaan qurunimo maxaa la yiri qeyla waqaala saaq hebel baasaasa reer hebel baasaasa waxa horumar lagu gaari may dugsi mala qabyaaladu waxay dumisay mooyee qabyaaladu waa mid wadooyinkan hadda aynu taaganahay burburisay oo sanduuqadaha ka dhisatay aqliga qabiilku waa midkaas aqliga qabiilka qurunka inaynu ka gudubno oo dhulkeena quruxsano oo dhulkeena wada dhisano maanta taariikh baa qormaysa qofkii taariikhdaas warqad qof walba meesha uu isaga qorayo ka qormaya ninkii wax ka dhisa dhulka ninkii dhulka wax ka difaaca ninkii dhulka horumarkiisa ka shaqeeya ninkii dhulka nabadgelyadiisa wax ka shaqeeya beej wanaagsan buu ku qoraya ninka fadhi ku dirarka iyo darbiyada iyo horumar la'aanta iyo qabyaalada iyo qurunimada ka sheekeeyana hada beej xun buu ku qormaya dhalinyarada waxaan kula dardaarmaynaa dhulka mustaqbalkiisa waa idinka ummadan dhalinyaradeedu horumarin ma horumardo nin walba dhoobada guro nin walba inuu dhagaxa guro nin walba dhulka inuu ka shaqeeyo ciidan haduu yahay iyo shacab haduu yahay dhamaanteen inagoo isku duuban dhalinyaradu waxaan rabaa inay soo diyaar garowdo say dalka u dhis lahaayeen dhulkaana aad arkaysaan aabayaashin baa iska wax u qabsa ku dhisay iskuulku umada inoo muuqda laguma dhisin hanti shisheeye iska wax u qabsa lagu dhisay aabayaasheen iyo hooyooyinkeen baa dhisay inaguna waxaan rabaa maanta inaynu caruurteena uga tagno wadooyinka ay mari lahaayeen iyo dhulkii ay ku noolaan lahaayeen iyo magac iyo sharaf iyo dawladnimo inaynu uga tagno ayaan idinku baaqaya wadadan maanta aynu dhagax dhignay waxay noqonaysaa wada iskaashi iyo horumar u horseedaysa ummadda qof walbana inuu kaalintiisa ka qaato ayaan kula dardaarmaynaa haddana shaqadii ayaan kula gudagelaynaa waxaan leenahay dhuumanayo waa dhulkaagii ninkii ka dhuunta waa la arki doonaa qiimaha badan leh waxay tahay wado shay oo arrakaawo ayaa halka kan aynu ka furaynaa hawsheedii waa oo bilaabatay dabadeedna waxa weeyaan hawshaas iyada waxa kharashka waxa bixiyay qaybta ugu weyn waxa bixiyay waa EEC-da ama European ka ayaa bixiyay EU-da ay miinaan raahdo waa isku tagayaan EU-da ayaa bixisay waxaana ka soo qaaday ayro oo maartay soo wakiisheen dabeedna waxa fulinaya maxaan ku raahayay dawladaha hoose iyo gobolka ayaa fulinaya dabeedna hawshaas haddii ilaahayda ka dhigo waxay waa bilaabatay dabcan wadada waxa weeyaan ay bixiyeen qoladaasi annagana waxa weeyaan waxaan ku yeelanaynaa qayb baan bixinaynaa contribution-ka oo kharashka loogu talagalay waxa weeyaan wax badan baa naga raacaya wadadaas ayaa weeyaan saaka furitaankeenu waxaan ka codsanaynaa meelaha ay marayso iyo dadka degan inay u fududeeyaan shaqada sida loogu talagalay wado waa la garanayaa faa'iidada ay u leedahay waxaan ka codsanaynaa dadku inay la shaqeeyaan ciidamada iyo nabadgelyada sugaya iyo sharikadda maxaan ku raahayay hawsha wada intaas ayaan oranaynaa wixii hadalka dhimanna waxaan u wareejinayaa gudoomiyaha gobolka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.